السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستو الدنيا ka joogtaan waa walaalkeen Idris Xasan Maxamed. Page-ka iga daawanaysa waa Idris Qasab Page Official. Sidoo kale kanaalkayga YouTube-ka ayaad igala soconaysaa isla Idris Qasab Page Official. Muuqaalkan runtii waxaan ku soo qaadan doonaa ama aan ku dhamaystiri doonaa qisadii gabadhii halka sano muddo ahayd seexan jirtay dariiqyada ama beer ku taalo wadada. Muuqaalkan xuquuqdiisa waxa iska leh Ali Adaab, taasoo ay gabadhiga codsatay Niciima Ibraahim Macul dhaho commentiga ka muuqata in ay ogaato gabadhani meeshii ay ku dambeysay ama qisadan meeshii ay ku idlaanisay. Anigana waxaan isku taxalujiyay bal inaan idiin soo gudbiyo qisadani meeshii ay ku dambeysay. Sidii caadada ahayd page-kayna like sar, sidoo kalena qaybta YouTube-ka subscribe mahadsanid. Qisadani waxay ku bilaamaysaa sida tan. Sida aad ula wada socoteen xalqadii hore een soo deynay isbuucii hore, gabadhani wax hooya ma haysan, nolosheeduna waxay ahayd mid iska adag iyadoo ah keligeed. Markii aan sii deynay iyadoo live ah xalqada ama qisadii gabadha, waxaa yimid aabaha gabadha oo noogu yimid meeshii ama TV-ga xaruntiisa, kaasoo keenay waxyaabo badan sida caddeynta dhalashadeeda hadday noqoto iyo dhalashadiisa si aan iskugu eegno inuu yahay aabahayga saxda ah. Kadib ayuu salaamay askariga, aabahina uu salaamaya, waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabto, alxamdulillah, isagoo inanka askariga kule iska qaada raaxadaada. Kadib ayuu leeyahay ayaa tahay Abu Cali ayaan ahay buu yidhi. Gabadha aad raadinayso waayo? Gabadhu waa Faadima tii seexanaysa beerta. Ma gabadhaadiiba maxaa dhacay? Yacni ma iga sheekayn karaysaa dhibaatada? Yacni waxa uu dhahay waa gabadh xanuunsan bay ahayd oo aana maskaxdeedu dhamayn. Markii dambe waxaan arkay muuqaal aan ka daawaday TV-giina, sidaas darteed ayaana kuugu imid. Ayuu ku dhahay maxaa caddeynaya inay gabadhaadii tahay? Markaasuu dhahay waxaan hayaa warqaaye caddeynta ama dhalashooyinkaygii. Kadib ayuu tusay bataaqadii ama sharcigii gabadha. Kadibna sharcigiisii ayuu eegay, wuuna isku eegay, waxayna noqdeen wax isle maadaama uu aabaheed yahay. Sidii aad wada arkaysay muuqaalkii ugu horreeyay eenu sii deynay janalkaygaan ka sii deynay, waxay ahayd gabadh runtii aad u dhibaataysan, seexatana dariiqa, xaaladeeduna ay aad u adag tahay nolosha ay ku nooshahay oo ah mid ay dariiqa seexanaysa. Waxay dhalatay 2003 ayuu odaygu dhahay. Markaasuu dhahay waxa iyadu nagu sheegtay ama ay dhahday waxaan dhashay 2001. Sida aan wada arkayno ama aanu ka aragnay waraaqahan ama dhalashooyinkeygan, ma noqon doonto mid aanu kugu xujayno waxyaabo badan ama waraaqo aad u adag oonu ku odhan doono keen waxyaabaha lagaga baahan yahay maadaama tahay aabaha dhalay gabadha. Runtii ilaahay ayaa mahad iska leh maadaama aad tahay aabaha Faadima. Adiga iyo xaaskaagu miyaad kala tagteen? Yacni gabadha Faadimo hooyadeed? Ha ayuu dhahay, waayo waxay noo sheegtay in ay hooyadeed tuurtay. Ha ayuu dhahay, iyada ayaa tuurtay. Markii horena iyada ayaa iga qaadatay oo dhahday isii gabadhayda. Haas ahaantii gabadhu way yara xanuunsanayd oo gabadhayda Faadima xogaa xanuun yar ayaa ku jira. Sababta ay u tuurtay waa maxay hooyadeed? Markaasuu dhahay ma garanayo waxay u tuurtay. Runtii waa wax murugo badan, taasoo ah maadaama hooyadu ay ka qaadatay aabaha oo dhahday anaa mas-uuliyaddeeda la wareegaya in ay gabadheedii dayriso ama ay meelaha ku tuurto. Maaha, waayo maadaama aabihii ay ka soo qaatay. Runtii aabahani ma daynin gabadhiisa maadaama muuqaal uu ka soo duubay ninkani oo uu ka arkay TV-giisa. Waxa uu sameeyey in bal uu booqdo, uu u tago TV-ga, uu yidhaahdo gabadhaydii ayaan u baahanahay, isagoo warqadihii caddeyntaana hore u sii qaday. Runtii ninkan dhalinyaro ee Cali Adaab isagoo laftirkiisu waxa uu sameeyey asxaan weyn maadaama uu janalkiisa ka sii daayay dhibaatada haysata gabadha, oo runtii uu aabaha gabadha dhalay uu ka danqaday dhibaatada gabadha yar haysata. Sida aan wada arkayno hadda wuxuu way isleeyihiin oo gabadhiisa iyo isagu waxaa caddeynaya sharciyadooda imika inoo wada muuqda. Wax kastaana hortiina ayay idinka muuqdaan in uu yahay aabaha dhalay gabadha, taasoo haddana uu caddeyn uga sii dhigayo inuu xitaahayo degenaanshaha ama
deganaanshaha waddankiisa hooyo maadaama uu yahay aabbaha gabadha dhalay. markii aanu eegnay waxaan oo dhan waxaanu ogaanay inuu yahay aabbaha saxda ah ee gabadha dhalay. hase ahaatee maadaama ay sidaa tahay waanu tegaynaa hadda oo waxaan ku geynaa waxa aan rajayn doonaana in ay gabadhu ku aqoonsan doonto gabadhaada maadaama ay tahay gabadhii aad dhashay. markaasuu dhaawaa dabcan kadibna waxay u socdaaleen meeshii uu inanku geeyey markii hore inankan samafalaha ee Ali Adaab. aabbaha gabadha hadda waxaan u qaxaynaa ama aan geyn doonaa meeshii aan gabadha lagu xanaaneynayay maadaama ay dhibaato badan haysatay, taasoo ah in ay seexanaysay dariiqyada ama wadooyinka. hooyadeedna ay soo dayrisay ama ay soo eriday. aabbihiina uuna ka quusan gabadhiisa uu soo raadiyey maadaama uu dhalay isagu, waayo aabbayaal wanaagsan ayaa jira sida aabbahan oo kale. sidoo kale kamana maqnaa in ay jiraan hooyoyaal aada u wanaagsan oo hooyo aana loo dhigay aana jirin. hase ahaatee bini-aadanka waa laga helayaa mid xun oo ha odhan maanta wuxuu cambaareynayaa hooyooyinka. hase ahaatee wax kastaba waxaan idinku soo gudbinayaa sida xaqiiqada ah ee maaha waxaan soo lalabayo ama waxaan been ka sheegayo. kadib nasiib wanaag waxay soo gaadheen meeshii ay gabadhu ku noolayd. waa aabbaha iyo wiil ay walaalayihiin gabadha. markii aan gudaha u galnay meesha ay ku noolayd Faadima waxaanu eegnay kamarada maadaama ay isdiyaarinaysay, taasoo aan u sheegnay in ay u yimaadeen marti, taasoo ay ogaatay in ay waalidkeed inuu u yimaadeen. alxamdulilah, ilaahay ayaa mahad iskale. hadda sidaan u wada jeedno kamarada way isdiyaarinaysaa oo hadda sidaan wada arkayno way soo baxaysaa gabadhaada. waan yar sugaynaa bal inta ay ka imaanayso gabadhaada. sidaan wada arkayno hadda wayse soo diyaarisay maasha allah gabadhiisii. kadib ayaa lagu leeyahay soo gal Faaduma, soo gal albaabkana soo fur. kadib ayay arkaysaa aabbaheed. runtii aad ayay ugu yaabtay aabbaheed maadaama uu soo booqday uuna ugu yimid meeshii ay ku noolayd. marka ayuu weydiiyey kanima aabbahaya? haa ayay dhahday waa aabbahay. kadib aabbo ayay dhahday wayna ku dhegtay. runtii waa wax aada u farxad badan maadaama aabbahii uu gartay inuu gabadhiisii soo ceshado. waxaana ka timid oohin aan la soo koobi karayn aabbahan maadaama iyadoo duruuf aada u badan ka muuqato. oohinna meesha waa isdhex mareen dhammaantood. walaalkeedna meesha ayuu fadhiya. kac walaabo, walaasha madaxa ka dhunko oo raalli geli. runtii waa qiso aada u xanuun badan, waayo qof kastaaba wuu dareemi karayaa waalid ama dad kala maqnaa in badan aan idhaahdo oo isku yimid farxadda ka dhex bilaami doonta. kadib ayuu su-aal weydiinayaa maxaa kugu dhacay oo guriga aabbaha uga tegtay. kadib ayay dhahday waxay ga kaxaysatay hooyadayna waxay ugu tuurtay bannaanka. adigu yaad jeceshahay ma hooyada mise aabbaha? markaabay dhahday may, aniga aabbahay ayaan jecelahay. runtii waa wax lagu farxo maadaama aabbahani uu naxariis aada u badan siiyey. hooyadii meesha kaga tegtay ama soo tuurtay marnaba maynu odhan bal gabadhaadii booqo maadaama ay muuqaaladan baraha bulshada lagu faafiyaan idhaahdo. laakiin aabbahani runtii markuu arkay muuqaalkii waxaa gashay naxariis, isagoo booqday gabadhiisii una sheegay inuu gabadhiisii u baahan yahay oyna meeshan ku noolaanin, isagana ay la noolaanayso inta cimrigiisa ka dhiman. runtii way ku farxeen Ali Adaab iyo gabadha meesha ka mas-uulka ah. waa wax lagu farxo aabbahan naxariista ka muuqata, waana wax lagu daydo aabba kastaana uu ku daydo aabbahan naxariistiisoo kale. maasha allah, tabaarakallah aan idhaahno faamilkan hadda noloshoodu ay u bilaabmi doonto farxad iyo wanaag maadaama hooyadii iyadu ayna soo booqan, aabbahanna uu hadda wadan rabo gabadha.
annakuna waxaan isku dayaynaa inaan bal wax kastay idiin soo gudbino. alxamdulilah, shalay dariiq ayay seexanaysay, maantana waalidkeed ayaa u yimid, oo wax lagu farxo ama wax aada u wanaagsan. yacni dhibaato badan kadib hadda alxamdulilah waxaan rajaynayaa inay dhibaatadii sidaa ku dhammaatay. ilaahayna ha ku xafido aabbo cali. yacni adigana waxay kuu tahay fursad aada u wanaagsan maadaama waalidkaagii aad dib ula midoobaysid. runtii gabadhii farxad ayaa ka muuqata sidaan wada arkayno, iyadii aabaheedba runtii waxau leeyahay aabba hadal oo u sheeg. kadib ayay leedahay wax aada u wanaagsan weeyaan maadaama aan faamilkaygii aan dib iskugu noqonayno. runtii waa wax lagu farxo maadaama ay dhammaantood hal mar wada farxeen gabadha mas-uulka ka ah cali adaab iyo aabbaha gabadha dhalay, taasoo hadda uu iminka doonayo aabbuhu inuu geeyo gurigii. runtii hadal badan lama sii wadi karayo. aabbihiina gabadhii uu ku wareejiyey cali. kadib ayuu leeyahay waxaan rajaynayaa noloshiina in ay farxad ku dhammaysataan. kadib ayuu leeyahay waxaagina waan ku soconaya sidaan markii hore ku heshiinay, waxaad bilaabi doontaa iskuulkaagii ama madarasadaadii ayay dib ugu noqonaysaa. kadib wuxuu u mahad celinayaa gabadha meesha ka mas-uulka ah ee kaamkan ama meeshan ay gabadhan ku nooleen ka mas-uulka ah, isagoo ummadana u rajaynaya in ay qalbiyadooda naxariis iyo wanaag isdhex dhigaan. faatima sidaan wada arkayno hadda waxay noqotay qof meesha ka urursata dharkeega maadaama uu aabaheed u yimid, taasoo inoo tusaaleynaysaa kala tagga faamilka ama hooyadii aabbaha saameynta ugu badan inay ku yeelato caruurta ama dhibka ugu badan inuu gaadho caruurta, sida dhibaato aana kasoo kabasho lahayn qalbiyadooda ciyaalka maadaama ay arkeen dhibaato aada u xun, taasoo ilaa weynaantooda ay ku gaadhaan dhibaatadaas, taasoo ah wax aada u xanuun badan. oo waxaa dareemi karayaa qof ay waalidkiisu kala tegeen, hooyadii ama aabihii ay kala tegeen, una soo koray dhibaato iyo rafaad isagoo keligiiya, ama dad kala ha hayaan ama isagu noloshiisa ha soo kaafiyo. hadda maasha allah boorsadeedii waa xirxiratay faatima, taasoo u jihaysan in ay tagto gurigii aabaheed iyo walaalkeed oo hadda la socda. qisadii faatima inta ayaan kusoo gabgoonin doonaa. waxaa mahad gaara u sugnaatay allihii subxaana wa tacaala ee iga suurtageliyey inaan idinla wadaago qisooyinkan. mahadda labaad waxaa iska leh mulkiilaha muuqaalka ee cali adaab. mahadda saddexaad waxaa idiin sugnaatay idinka oo igu taageera ama igu dhiirigeliya inaan idinla wadaago qisooyinkan. waxaan idinkaga tegi doonaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.